ahaantii magaalada Muqdisho maanta intii aan dhex socday maxay ahayd maxaa jawhar baa kaamirada waday waxay ahayd waxaan laga sheekeyn karin waxyaabaha aan arkay dareenkayga wax soo jiidanaya nabadda horumarka dhalinyaro iska baashaalayso meel kasta lagu soo bandhigayo ciyaar dhaqameedka mararka qaar inta badan nabad lagu naaloonayo cabsi badan aanay jirin masha Allah waan ku qancay boqolkiiba boqol halka ay xaaladdu marayso waan rajaynayaa insha Allah in halkaas si wanaagsan la gaaro hadda Allah wada ka raali noqdo halyeeyad Soomaaliyeed geesiyad Soomaaliyeed qof soo halgantay isla markaasina loo sameeyay taalo iyo taariikh xusuus badan waan jecelnahay waxaan leenahay annagana waxa naga soo bixi doona insha Allah boqolaal xaawataako hadoo Allah wada ka raali noqdo way maadsan yihiin dawladda iyo cid kasta oo markaas gacan ka geysatay in la dhiso la soo nooleeyo taalooyinka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed aad ay u maadsan yihiin xamar waa hilaacday halkaan saaranahay waa City View dabaqa ugu koreeyo dabaqyo mataqaana ka dhadheer inay jiraan waa macquul laakiin galabta barnaamijka halkaan baan ka soo diyaariyay qaybta kalena waa idinka tusi doonaa insha Allah New York miya isleedahay meeshaan fiire سبحانك يا عدين حيرتنا وطن دنيعي كلبان إذا كنت صياح وحمر وإذل معنا حمر وإذل أيان رواينا إذا تشي أوكر دقمة وصوت هذا جري لكن دقمة بعد أفتمانتو حيويان مقدشو دانا رواينا إذن داوسيو هذه لا دعوتان دارها لا إذن مقدوا سوقي ويناي بكارو دارتان كاميرا الإخوان يسوى دارتين رمودا أب قيبت وحاني ما نمركان قرح ودع مهل والله بحياتي كأخواني سوق الحوانيت الحمرة حمر مقالة ما شاء الله degmadii hodan oo bil ka hor aan ka diyaarinay barnaamijyada waad u jeedaan iyada ugu dheer ma sha Allah SYL waa mid ka mid ah taalooyinka ugu qiimaha badan run ahaantii aanan u hamuun qabay inaan maanta imaado alxamdulillah waan imaaday sugannahay madal kale iyo maamuus taariikhi ah waa taalada SYL halgamayaashii 13 dhalinyarada ahaa ee markaasi 1943 iyo markaasi halgankii taariikhiga ahaa taaladoodii oo markaasi ku jirtay taalooyinkii dib u cusboonaysiinta lagu sameeyay waa dhalinyaro run ahaantii halgankooda iyo taariikhda ay ka sameeyeen geyga Soomaalida iyo waxyaabihii ay unkeen ilaa haatan aan ku naaloonayno annaga iyo qarniyo
in badan iyaga ka dambeeyay waana rajaynayaa in dhalinyaro iyaga oo kaleeta sidoodii oo kaleeta ay soo bixi doonaan insha Allah tacaala oo halka hadda in marayno oo meel wanaagsan insha Allah meel ka sii wanaagsan ayna gaarsiin doonaan damaashaad farxad iyo kolba meel cusub sidii ay noogu dalxiis geenayeen kii dalxiisiyo tamashli doonayo dalkeena la heli kari dunida meelu dhigantee soo daawo sida loo kala daal badan yahay socodkiina laga garanaa daalay soma wala wala daalay hawl qaran baa la hayay maanta dhan baa la socday la wareegayay daacad baan ku daalay xaabkan way noo dhiman tahay meel badan baa noo dhiman yar oo ciyaaraya laamiga dhexdiisa soo kulayliyo baraf male dhulkeenu inaga halaynay Soomaaliyey hoy inta gawaarida ka xidhan yihiin sidaas laajiga dhalinyarada ciyaalku ay ku ciyaari karaan gawaari badan ma socdaan gaari yar dowladeeda ma ahaan waa madaxtooyadii aageedii markuu carruur yaryaroo dhulkooda isaga raaxaysanaysa markaas kubaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha keena nabadda iyo isdhexgalka bulshada miyuu muuqataa qofkii dalxiisiyo tamashli doonayo dalkeena la heli kari dunida meelu dhigantee soo daawo oo arag dakadaha dhulkeeliyo xeeba dabacsan ee dheer togog soo durdura oo daadiyo xayaaba leh taaladii sayidka ayaanu imaanay waxaan soconaba alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ka mid ah taalooyinka ugu qiimaha badan run ahaantii waa halgamaagii la dagaalamay ingiriiska aad iyo aad halyeygii qaranka ee maaragtay sababta uu ahaa in maanta inta badan dalka Soomaaliyeed sayid maxay cabdilla xasan waa ninkii ingiriiska ku yiri markii uu yiri ingiriisku maxaa cashuur iyo wax keen uu yiri waxaad keentaa aqoonsiga ama sharciga dalka ku soo gashay ingiriiskuna uu u yaqaano damulla madwadaadkii walaal inaguna maxaynu u naqaanaa halyeygii qaranka dhiiranihii iyo dhaliyihii guusha Soomaaliyeed maasha Allah Allah ku daayo oo ka mid ah taalooyinka ugu qiimaha badan run ahaantii waa halgamaagii la dagaalamay ingiriiska Soomaaliya hooyada ummadda Soomaaliyeed iftiinkaasi iyo horumarkaasi aad arkayso waa bulshada iyo dhaqaalaheeda iyo sida ay u sii korayso maalinka dambaysa magaalada Muqdisho ay dadka masiibooyinka sheegaan waxa weeyaan magaalada sawirka iyo dulqaadka magaalada korriinka iyo tamidda caasimadda dalka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay dalka iyo dadkaba ha isu keeno waa wanaajiyo nabaduna way imaanaysaa Muqdisho muran ma baahna Crime is hotel, that's an insult for us.
فارك ستريت كمباني مركز أنا غرني لها waxay la socon dayaxo maanta waxay la socon dayaxo fark soo shaqeyso waxaan dadka fark soo martay ay saaxiibad tiri markaas aan noqono shirkadeeda Forex Trade Company waa shirkada kaliya shacabka iyo dadka iyo dhalinyarada iyo inta wax la haysin baa waaw halkani waa xagee taalada lambarafin baa waaw halkani waa xagee taalada lambarafin halkeen joognaa Elite Hotel. absolutely thank you wow kii qurux badan waxaan joognaa xeebtooyada oo babad qorqoran ahaantii ay u soo markaasi dalxiis orod iyo tagaan amartay jimicsi loo soo aado sawir loo soo aado qurux in hawada la qaato loo soo aado sawirkii bulshada ay u soo aado runtii waa meel aad u qurux badan saaka subax hore ayaan imaanay maasha allah maxamedow haye ka warrama saaka iyo jawigii saaka ka sheekeeya adiga iyo dayax lagama hadli karo maasha allah jawi yar aad u qurux badan haye dawaalun baa dhiman maxaa dhiman dawaalun baa dhiman dabaashuun baa dhiman wada la galo haye jawigu waa degdeg oo maasha allah hala soo yaaca liidaha la imaadaniyo maasha allah waa neecaw yaroo qurux badan way ahayd run ahaantii Mrs. Dayax Ahmed maalmahan waa halkii dawladda ee wax kasta waxay ii tahay waa maalintii ugu horeysay oo maalintii ugu horeysay tar muqdisho jooga qorrax soo baxaysa aan xeeb joogo ya haye laba sano waa maalintii ugu horeysay qorraxdiida soo baxaysa aan xeebta liido joogo haye taani noqon maalintii ugu horeysay qorrax arko haye intaan yar baata ilaana maxamed jalal saldan oo soo wareey halkaan lagu sawirayaa inta lagu sawirayaa ilaana soo sida ma aha xabiibti tiro qurux badan soo ma ahay wallahi allaha sawir walaay ka xasta yaa ku sawira waya intaas sawirka qaaday waa idin soo laabanaya tiim ilhaan laki waa idin salaamay subaxii hala jimacsado caloosha hala jaro waxaan ku yiraahday caafimaad weeyaan dhakhaatiirta sanadkan dadka dawo uma qoraan wax u qoraan orod caafimaad jimicsi hala jimacsado biyo badan hala cabo damaashaad farxad iyo kolba meel cusub sidii ay noogu dalxiis geenayeen bulshada kaxda mantay curato mataanayse aan maalo heshee